xogayaa fulinta dawladda hoose ee degmadaasi Togwajal mudane Cabdullaahi Xasan Samaale ayaa saaka subaxnimadii hore soo kormeeray kaawaanka xoolaha lagu qalo ka socoto mashaariic kala duwan oo ku fulinayo xogayaa fulinta dawladda hoose ee degmadaasi Togwajal isagoo arrimo kale ka hadlayna waxa kamid ah hadaladiisii kawaanka degmada Wajaale kawaanku waa meelaha fayadhowrka nolosha asaasiga oo bulshada wadiga imagaarka iyo xoolihii oo lagu qalo nooc walba la geeli baa lagu qalayaa arigii baa lagu qalayaa loodii baa lagu qalayaa marka halkan waxa ku yaala laba barkadood baa qodnaa labada barkadood mid waxay haytii uu ku dhacay dhiiga arigu midna waxa ku dhacay dhiiga looda labadii barkadood tii dhiiga loodu ku dhacayeen baa buuxsantay oo tan iga dambaysa dabeedna waxa laga maarmaan noqotay inaan si degdeg ah ugu diyaar garoono intaan roobku bilaabmin inaan helo foos weyn oo labadii barkadood ee hore isku leeg oo dhererkiisu xagaana uu yahay 8 mitir xagaana uu yahay ballacana 3 mitir hoosna aan doonayna ilaa 5 joogin laga dhigo deedna waa la soo dhisi doonaa xaga gudahana waxaan doonaynaa in dhererka 2 mitir iyo 2 mitir oo square in dhexda gudaha inta hoos loo qodo dabadeed xarsha lagu rido adiga arkay xarshadii dhagaxan waxaan u keenay in lagu rido halka dhexda si ciidu biyaha u qaadato xarshada marka lagu rido biyaha ayuu aad u cabayaa godku baa leeyahay deedna marka godkani waxaan doonaynaa 3 cisho gudahood hadii aan la yiraahdo inuu nagaga dhameystirmo deedna la afsaaro deedna aan kaga baahi baxno dhiiga faraha badan leh qaliinka xoolaha iyo wixii nadaafad ah ee kawaanka ah inuu fooskaa weyn uu noogu dhaco deedna baahidii nadaafada ee dhiiga iyo wixii la halmaala aan kaga baahi baxno insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa in 3 maalmood gudahood uu noogu dhameysno roobkan ka degdegayna marka insha Allah sidaas baa hawshu noogu socota wassalaamu calaykum waraxmatullaahi si kastaba ahaatee xogayaa fulinta dawladda ee degmadaasi Togwajal ayaa isagoo mas'uuliyiinta badan ka shaqeeya horumarka degmadaasi Togwajal isagoo muddadii yareed uu joogay degmadaasi Togwajal mashaariic kala duwan ka fuliyay isla degmadaasi Khadar Cabdi Cabdullaahi warbaahinta madaxa bannaan degmada Togwajal